دكتور جامع إلى الجعل وأمامها حرونتا دار الرحمة isku daweynta dhirta oo ku guuleystay daweynta xanuuno badan oo ay ka mid yihiin baabasiirka oo saddex nooca sonkorta gaaska stresska neerfaha caabuqa gala jirka biyabaxa degdega himalaanta ragga iyo dumarka iyo xanuuno kale ayaa maanta ugu bishaareeyay macaamiishiisa ku xiran in xarunta daarul rahma ay xarumo cusub ka furatay dalka iyo dibadda dawooyinka dhirtana ay ka heli karaan sida dalka dibadiisa Mareykanka Nairobi Uganda iyo Koonfur Afrika halka gudahana aad ka heli karto magaalada Gaalkacyo Garowe Boosaaso iyo Galaadi oo ah dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan ka salaamayaa dadka luqadeeda garanaya oo Soomaaliya ku hadla meel kasta adduunka joogan inaan soo kordhiyay Daarul Rahma xarun cusub ay ka furatay meesha la yiraahdo Koonfur Afrika waxaan ka sameynay xarun nambarka iyo Sheekh Faarax hoos baan ku siinayna nambarkiisa wajaale iyada lafteeda xarun baan ka sameynay namcaan wajaale isagana nambarkiisa hoos baan ku soo qoraynaa Mareykanka Minnesota maanta way taala insha Allah waad heleysaan Nairobi sidoo kale waad ka heleysaan nambarada hoos baan ku soo qori doonaa insha Allah waxaan ugu bishaaraynayaa marka dawladaha Daarul Rahma inay dhalinyaradii sidii hore musalsalkii noo dhaxeeyay inaad YouTube ka booqataan baashi ayada siigada in la iska daayo mamnuuc way baashaasu mid kale rag badan oo dhalinyaro aan siigada iska daaya waxay yiraahdeen ma guursan karo guurku waan ugu kharash badan yahay gabdhihi anaga la hadalay gabdhihi waxay yiraahdeen wax xujo ku xirmayna dhalinyarada guurka u fududeynaa insha Allah Dr. Jamac ayaa sidoo kale macaamiishii hore dawada u qaadatay kula dardaarmay inay dhameystaan waqtiga loogu talagalay dawada oo ah 3 bilood waxaan ugu bishaaraynayaa dhammaan macaamiisha talooyin badan oo aan siinay inay dib u eegaan daawadeenu wax badan baa Ilaahay nagu goolay oo ogtiin oo YouTube-kiga yani markaad booqataan Dr. Jamac Ilaala Jecel waxyaalo badan oo faa'iido leh baa isaanka Ilaahay siiyay annagana Ilaahay noo siyaadiyay nimcadiisa oo inaan ku shukranaa waafajiyo waa Ilaahay baan weydiisanaynaa waxaan halkan digniin caafimaad ugu dirayaa dadka daawadeeda qaata inaysan isticmaalin lindanaad inta daawada wadaan way lindanaad waa geed madax bannaan taas waa mid labaad daawada dadka bukaanka ay daawada isticmaal hal bil waxba ma anfacayso waxaan ka codsanayaa daawada si kuurada waa 3 bilood qofkii aan 3 bilood dhameysan karin inuu faraha ka qaado waayo lacag bool ka qaadanaynaa wixii wax tarmaya waxna waa naga sheegaya waxaan kula talinayaa daawada kuuradeeda inay isticmaalaan dadweynaha Daarul Rahma waan salaamayaa waa Dr. Jamac wallahi Ilaala Jecel oo leh Daarul Rahma salaan sare bayd salaamaysaa dadweynaha meel kasta adduunka joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaba dhageyste si aad ula socoto faalooyinka iyo talooyinka caafimaad ee uu bixiyo Dr. Jamac Ilaala Jecel waxaa muhiim ah inaad ku soo biirto saaxiibada page-ka YouTube